against the peace Somali. waxaan maanta meeshan isugu soo baxnay oo qoraxdan kulul aan isugu soo baxnay inaan shucuurteeda aan ku muujino ku aadan shirka ka dhacay Kampala ay ku gaareen labada shariif iyo ninka la yiraahdo magaciisa muxuu ahaa Mahiga waxaanu ka soo horjeednaa go'aanka ay ku gaareen iyo waxa iyaga u gooniya ninka la yiraahdo Shariif Sakiin waxa weeye dawladda Soomaaliya in lagu gorgortamo maanta gorgortan inay tagto anagu waxaan ka soo horjeedno waxaan taageersanahay midnimada Soomaaliya waxaan taageersanahay ninka la yiraahdo Farmaajo isaga ra'iisul wasaare noo ah insha Allah isagana madaxweynaha noo ah shirkii Kampala ka dhacay usbuuci dhawaa waa shir yani aanu aragno inuu ahaa shir ay ka dambeeyeen labadii hoggaan oo kala hogaaminaysay dhinacyada isku khilaafsanaa TFG da institutionkeeda isku khilaafsanaa labada dhinac oo kala hogaaminaya gudoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweynihii khilaafkoodii ayuunbaa wuxuu la galay in ay yani go'aankaas ay gaaraan ayuu la galay go'aankaas oo sida u muuqda ama yani xaqiiqadiisaba ay ka tarjumeen ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inaanu ahayn go'aan u qalmo ama ku taagan maaragtay charterkii bismillaahir rahmaanir rahiim walaalayaal waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa banaanbaxa weyn oo maanta ka dhacay xaafadda Islii oo ummadda Soomaaliyeed ay danaheeda ku garanayso oo Soomaaliyeed ummadeeda ku garanayso banaanbaxaas waxaanu ka soo horjeednaa oo diidanahay shirkii shalay maalinkii dhow ka dhacay Kampala oo labada shariif iyo madaxweynaha walaalkaya oo Kampala ay ku gaareen iyo Mahiga shirka shir Soomaaliya xukuumad ma ahayn shir Soomaaliya dan ugu jirta ma ahayn Soomaaliya waxay dantu ugu jirtaa iyo wanaagu ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa waana ku taageeraynaa waana ku garab taaganahay haddaanu nahay shacabka Soomaaliyeed guul shacbiga Soomaaliyeed baan la hadlay meel uu joogaba dibadda iyo gudaba waxaad moodaa maanta in diilayna soo gashay oo maanta mowqif cad oo aad ku diidantiin qaladkii dhacay oo ku midaysantiin markii ugu horeysan arkay waayaan dameelay tahay taas marka waxa ay diilayna u dhalinaysaa waxaanu u dhalinaysaa ma garanaysaa inaynu wixii aynu ka sameeyay oo Soomaalida ka sameeyay inay soo noolata ayaa noo muuqanaysa haw dib ha uga dhicinina nin baa gabiyo wuxuu yiri gabiga laba eray baan ka qabsay nin dayoobay soo noqoy kolkuu waagu daalacay dadweynihii la lumiyaa kolbu dowga helayay ninka hadda Nairobi nala jooga Axmed Socdaam baa leeyahay maanta marka waxaad moodaa xoogaa inaynu shacbigeenu uu dayow ka soo baxay oo ma garanaysaa u soo laabtay ma garanaysaa ay sheegeen inuu garto waxa lagu hayo iyo dantooda waxay tahay iyo meesha la maagan yahay waxaan rabnaa Soomaaliya in ay noqoto meel fiican oo calankeeda oo istaago waxaan ka maqanahay ugu yaraan 21 sano ayaan joogaa waddanka Kenya waxaan u baahanahay in Soomaaliya ay noqoto nabad waxaan rabnaa ninka oo nabadda ka shaqeynayo oo ah magaciisa la yiraahdo Farmaajo labada sakiin ma rabno waxaan idinka baryaynaa inaad maartay ninkaas la garab istaago waxaan ka soo horjeednaa labada shariif danahooda gaarka ah inay fushtaan anaga waxaan taageersanaa ninkii shacabka wax qabanayo waxaan ka soo horjeednaa ninkan la Mahiga anaga Mahiga nooma taliyo dawlad madax banaan aan nahay Soomaaliya la dhahaa calana leenahay danayna gaarka anaga ka tashanayno qofkii noo talinayna oo danaha Soomaaliya wadana waa taageersanahay assalaamu calaykum waraxmatullah maanta aad baan u faraxsanahay Soomaali isku mid ah ayaan u jeedaa maanta dareenkaygu aad buu u faraxsan yahay waxaan leeyahay Farmaajo ha noolaado labada shariif iyo eygii aswadoontana hadaceen baan leeyahay hadaceen insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Xabiiba Yuusuf Camalow waxa shucuurtaydu ay tahay waddankayagii aan ka soo dagaagnay ee nalaga soo eriyay ma aragtay maanta iftiin oo Ilaahay noo keenay United Nations ay naga afqabanayso oo ay ma aragtay maxay ahayd dalaal iyo dulaal iyo kulli ay wada bixinayso ma doonayno waqtigii hadilmiyay dadka Soomaaliyeed ay ogaan lahaayeen waxyaalaha hadilmiyay sidan oo kale ku bilo soo hadoodilo inaanay dantoodu ku jirin in dantoodu ku jirto wixii tala ah ee wadanka hadilmiyay maxaa ku saabsan ee la qaadanaya ay noqoto talo
waddanka gudihiisa lagu qaatay talo dadka Soomaaliyeed ee arrintu khusaysa ay ka wada qayb qaateen talo hadilmay muxuu ahaa runtii dhibaatada maanta joogta wax ka qaban karta in hadilmay noqdo sidaas awgeed aniga waxay la tahay shirkii hadilmay Kampala ka dhacay shir khalad u ahaa waxyaalo badan oo khaladina waa ka soo baxeen waxyaalaha qaladka ka soo baxay saxidooda waxay ila tahay shacbiga Soomaaliyeed meel kastuu joogo inuu hadilmay ka jawaabay waynu arkaynay dibadaha oo hadilmay dhulka Ingiriiska ah iyo meelo kalaba wadanka iyo Kampala qudhideeda dadkii Soomaalida joogay wadanka gudihiisa xamar buuhoodle hadilmay muxuu ahaa meelo fara badan oo dadkii joogay iyagoo aan iska warhayn ayay kol kali ah hadal isku mid ah ay hadilmay yiraahdeen hadalka isku midkuna waa maxay waqtigii siyaasadda wadanka lagu hagi jiray dana beeleed iyo dana shakhsi waa dhamaaday waxa la galay waqtigii ummadda Soomaaliyeed ay danteeda iyada oo hadilmay muxuu ahaa aad iyo aad u baraarugsan oo arkaysa dhibaatada culus maanta haysata iyagu ay ka talin lahaayeen waxa meesha uu ka soo baxay waxa weeye waxa nin Soomaaliya oo damiir leh uusan marnaba aqbali karin dib kasta loo geysto si kasta loo dulaalo laakiin se in la taabto xornimada nadi xogaa waxa moodaa inay xadgudub weyn taasi tahay shacbiga Soomaaliyeed dareenkiisa xaq buu u leeyahay kullayba anigu aad baan ugu farxay aad iyo aad baan u garab taagnahay aad iyo aad baan u doonayaa inay dhiirinimo ku sii wadaan arrintaas baarlamaankana waxaan ka codsanaynaa inta wixii nin hore iska dhaaftaan go'aan cad oo qarannimo meesha ka qaata ka soo saar waxaan la soo saaray iyo waxaan la soo waxeeyay sovereignty dalka awoodii baarlamaanka iska leh waxaan ka codsanaynaa baarlamaanka codsanaynaa inay geesimo yeeshaan inay khilaafka iska daayaan inay ka soo saaraan resolution iyo go'aan cad oo shacbiga Soomaaliyeed ku raaci karo inay ka soo saaraan arrintaas dhammaan la diido wixii ka soo baxay Kampala waxaan ka nimid qaxootiyaasha 20 sano ayaan qaxooti ahayn markii hadda aan rajo yeelanay oo aan islayn hadda qaxootiga ka baxaysan oo wadankii dawladda yeeshay oo farmaajo aan isniri hadartaan asagii wax noo qabtay in la yiraahdo mahiiga iyo labada shariif ay yiraahdaan waa casilayna waxaan dul qaadanayna ma ahan waana markii ugu horeysay aan islayn inta qaxootiyaasha ka timaadaan wadankiina u laabataan waxaasna waxaan aqbali karnaa ma ahan waxaan ka codsanaynaa dadweynuhu in farmaajo qof aan ahayn uusan nagala tashan annaga haddaan qaxootinahay 20 sano iska daba wareegaynay Kenya dhexdeeda iyo qaxooti iyo bad iyo meel walba mana u dul qaadanayno haddii adduunyada dhan waxa ka socdo waxa weeye shacbiyad codkooda la qaadanay annagana shacabka Soomaaliyeed aan nahay waxaan rabnaa in codkeena la qaato